madaxda Soomaalida ee hadda jirta marka ay dhaqaalaha qaadanayaan oo markhaatiga cad oo dadkoo dhami garanaya hantida ay ka samaysanayaan dhaqaalihi oo muuqata ay ka samaysanayaan lamaba dhuuntaan lama dhuuntaane indhahaagoo shanay hortaada ka dhisanayaan dabaqyadii indhahaagoo shanaba ay shirkada ku samaysanayaan kaaba biqi mayaan adigii shacabka ahaa marka qofkaan shacabka kuma baraarugsana qofkaan madaxda ah asaga canshuurtu ka qaadanayo inuu ugu adeego oo dadkan shacabka loogu adeego sababtu inay ahayd inta marka canshuur bixiye bilaa xuquuq ah weeye shacab sida hadda markaan u hadlayno dad badan baa waxay moodayaan mucaaradnimo arrinta oo maxay mucaaradnimo ku tahay siyaasadda dhinaca ay dadkeenu siday ku hadaaqaan hebel buu la jiraa iyo hebel baad ka soo horjeedaa weeye aragti ma jirto aragti nolosha horumarinaysa oo bulshada horumarinaysa oo il bixinaysa oo daaweynaysa oo waxbaraysa oo warshada samaynaysa oo khayraadka soo saaraysa oo xuquuqda ilaalinaysa oo xiriirka bini'aadamka la leeyahay ama Soomaali ha noqoto ama bini'aadamka kale ha noqoto hagaajinaysa oo bulshada gudaheeda isjeclaysiinaysa oo bulsho isjecel ka dhigaysa oo maaragtay u tilmaamaysa meel loo socdo oo la higsanayo u tilmaamaysa sidaa in madaxnimadu ay tahay shacabku ma fahansaneen waxa weeye hebel baad necabtahay iyo hebel baad jeceshahay bay ugu qaybsantahay arrin maxay Soomaaliya u tahay waxa ay maanta tahay iyo meesha ay taalo foolxumada iyo dayaca ka muuqda ee dadka Soomaaliyeed haysta oo dhinac walba leh xag amniga xagga dhaqaalaha xagga hoggaanka caafimaadka waxbarashada arrimahaas walaalkay maxamed horay u taabtay maxay sidaas wuxuu yihiin weeye su'aasha maanta aanu ku bilaabaynaa barnaamijyada maxaase xalku ku jira sidee wax looga qaban karaa su'aashaas waxaan marka hore siinayaa walaal Cabdirisaaq Daad aad baad u mahadsan tahay walaal ruqyo asxaabta kale oo saaxiibaday ah oo meesha ku wada jirana waa salaamaya waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba oo barnaamijkan arki doonta iyo inta maqli doontaba intaas ka bacdi su'aasha aad weydiisay horta waa su'aal ballaaran oo gudaweyn oo barnaamijyo badan in laga sameeyo ayada ay tahay waxa Soomaaliya ay sidaas u tahay maanta ku sugan tahay wax badan oo isdul karooran sababo badan oo isku dul rasaysan ayaa keenaya marka anigu mana qabo intii xorriyadda la qaatay iyo dhaqankii ka horreeyey oo xoolo dhaqashada oo ay dadka Soomaalida badankood iyo maaragtay miisaankoodu ahaayeen dad xoolo dhaqata ah oo reer guuraa ah bay ku xariirsan tahay intii burburka ahayd keliya ma aha ilaa xorriyaddii ilaa ka hor ilaa dhaqankeennii xoolo dhaqatada ayaa lug ku leh ilaa gumaystihii ilaa maaragtay aqoonta dowladnimada oo aynaan maaragtay u soo lahayn markii hore maadaama dadkani xoolo dhaqato iska ahaa raacata ah aysan ahayn aqoon hore ay u yaqaaneen marka arrintaa haddii la damco in laga jawaabo waxay u baahanaysaa ooda dhacameed oo isa saaran oo badan in la kala qaadqaado bay u baahanaysaa marka waxaan isleeyahay barnaamijyadeenna soo socda ayay tahay arrintan in maaragtay si qayba mar ah in lagu qaadaa dhigo ilaa la soo gaaro hadda sida ay wax yihiin iyo sababaha hadda tooska ah oo sababihii hore ilaa intaa sababu waa kala dhalanayeen sababaha jira oo hadda tooska ah si loo fahmo waxa dhabta ah oo waddankeenu sidaa u yahay
waxay u baahan tahay ooda dhaqameed oo isa saaran oo badan oo arrimo badan oo ishuwan ah in la soo kala dhigdhigo taasna waxay u baahan tahay waqti dheer oo qayb mar la faahfaahiyo bay u baahan tahay ummadaha marka ay isbeddelka macnaha u baahan yihiin horumar isbeddel inuu ka dhaco dhaqamadooda ama noloshooda waagii horena badanaa sibuu uga dhici jiray waagan dambe oo maaragtay bini'aadamka isu furmay oo kala war helay oo xoogaa ilbaxnimadii sii badatayna si kale u gudbay qaabka isbeddelku ku yimaado waagii hore wuxuu ku iman jiray badanaa waxaa marti loo ahaa inuu soo baxo hoggaamiye bulshadaas nolosheeda sida ay tahay ka beddela oo isagu la yimaado hal abuur iyo go'aano iyo maaragtay inuu ka raro dadkaas oo geedi iyo hayaan geliyo una raro noloshay ku jiraan nolol ka fiican laakiin ay arrintu ku tiirsan tahay hoggaamiyahaas iyo mabaadi'da uu ka duulayo iyo kartidiisa iyo waxa waagi hore saasay u badnayd hadda waxaa timi bini'aadamku inay hoggaamiye sugaan ama marti u noqdaan badanaa waa laga gudbay waxay ku xiran tahay oo loo gudbay shacabku inuu hoggaamiyaha lana xisaabtami karo midka xunna iska eriyo midka wanaagsanna taageero ay runtuna ay awoodda shacabka ka timaado had iyo jeer shacabkuna yahay waxa ay ka baqayaan madaxda iyo siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha ay ka baqayaan shacabku yahay mid ka warqaba siduu hadaayo hore uu sheegay cabdirasaaq sheekh axmed mid ka warqaba xuquuqdiisa iyo awoodda madaxdu waxay tahay inaga masalan shacabkeena soomaaliyeed qofka markii madax uu noqdo inay qofka la xisaabtamaan oo si dhaba qofka loola xisaabtamo kama timaado shacabka ciddii fikraddaa soo jeedisana mucaarad baaba la mooda marka qofku markii uu madax noqdo u fiirsada dhaqankeennu hadda siduu yahay qofku markuu madax noqdo inuu fasaxan yahay buu la mid yahay inuu fasaxan yahay waana fasaxan yahay xaqiiqatan wuxuu u fasaxan yahay wax la xisaabtami karaa inaanay jirin xad celiya oo asaga celiyana inuusan jirin siduu hadba interestigiisa iyo danihiisa khaaska asagu u arko inuu u dhaqmo wax lagula xisaabtamo iyo wax celiya iyo maaragtay hadday tahay xuquuqda nafta iyo xuquuqda maalka iyo xuquuqda karaamada iyo badbaadada dalka iyo badbaadada ummadda iyo horumarka ummadda iyo dibidhaca iyo dhibaatadu geysto waxaasoo dhan waxaad moodaa dadku inay marti iska yihiin oo ay sugayaan asagu niyad wanaaggiisa inay ku tiirsanaadaano hadduu niyad wanaagsan yahayna asagu uu hagaajiyo hadduu wax dhi'inayana dadku ay victim iska noqonayaan baylaha oo dayacan marka shacabku sidii uu cabdirasaaq sheegaya weeye kuma baraarugsana shacabka soomaaliyeed inay ilaashadaan xuquuqda shacabku leeyahay masalan canshuur baa laga qaadaya dadkii canshuur baa laga qaadaya qofka canshuurta bixinaya canshuurtu meelay aado warna kama hayo lagana biqi mayo canshuurtii inuu ka daba yimaado su'aal ka daba keeno canshuurtii laga qaadayo oo aan adeeg dawlad waxaa loo samaystaa adeegga dadweynaha inay u adeegto dawladdu wax kale ma sida qabiil ma aha waa dad samee wax dadku kulanka dadku meel ku kulmaan oo isugu yimaadaan danaha isaga xiran dadka oo la rabo in loo fuliyo loo qabto dadna waa dadka sida privateka u shaqaysta dadna waa dad loo xulo inay danihii guud oo dadka ka dhaxeeyay fuliyaan sida baarlamaanada sida madaxweynaha sida wasiirada mushahaara la siiya sida maaragtay shaqaalaha oo dhanba dawladda oo mushaharada waxay u qaadanayaan adeegii la rabay inay qabtaan hadda misalan waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah maamulada jira Soomaaliya waxaad ka maqlaysaa oo ay ku faanaanba marmarka qaarkood
inay intaasoo mushahaare ay bixiyaan marka haddaanu hadda matalan qof madax ka dhigan oo uu noo sheego inuu mushahaaro asaga iyo dadka asaga la shaqeeya ay mushahaaro qaataan oo waxqabad nooga dhigo mushahaaraday qaataan annaga canshuur bixiyayaasha ahaa mushahaaraday qaataan ujeedadayadu ma aha ujeedadayadu waxay ahayd adeegii aanu u baahnayn inay noo qabtaan annaguna canshuur bixinno oo mushahaaradooda canshuurtaas qayb ka mid a mushahaaradooda baa lagu bixinayaa canshuurtayada canshuurta inta kale waxaa lagu bixinayaa adeegaanu u baahnay oo shacabku waycan u baahnaa caafimaad lahaa waxbarasho lahaa biyo nadiifa lahaa horumarinta miyiga iyo xoolaha oo nolosheenuba ku dhisan tahay ay ka mid tahay ilaalinta dalka oo maaragtay ama cadow dabadeed laga ilaaliyo ama wixii maaragtay aan munaasib u ahayn sida wasakh lagu duugayo ama sun ama jiriifid la dhacayo wadankii khayraadkiisa ay ka ilaaliyaan marka shaqadii la qaban lahaa oo adeega dawladda loo samaystaba adeega bulshada loo samaystaba adeegii waa maqan yahay waxaa intaa ka sii daran madaxda Soomaalida ee hadda jirta marka ay dhaqaalaha qaadanayaan oo markhaatiga cad oo dadkoo dhami garanaya hantida ay ka samaysanayaan dhaqaalihi oo muuqata ay ka samaysanayaan lamaba dhuuntaan lama dhuuntaane indhahaagoo shan ay hortaada ka dhisanayaan dabaqyadii indhahaagoo shanaba ay shirkada ku samaysanayaan kaaba biqi mayaan adigii shacabka ahaa marka qofkaan shacabka kuma baraarugsana qofkaan madaxda ah asaga canshuurtu ka qaadanayo inuu ugu adeego oo dadkan shacabka loogu adeego sababtu inay ahayd inta marka canshuur bixiye bilaa xuquuq ah weeye shacabka sidaa hadda markaan u hadlayno dad badan baa waxay moodayaan mucaaradnimo arrintaa oo maxay mucaaradnimo ku tahay siyaasadda dhinaca ay dadkeenu siday ku hadaaqaan hebel buu la jiraa iyo hebel baad ka soo horjeedaa weeye aragti ma jirto aragti nolosha horumarinaysa oo bulshada horumarinaysa oo il bixinaysa oo daaweynaysa oo waxbaraysa oo warshada samaynaysa oo khayraadka soo saaraysa oo xuquuqda ilaalinaysa oo xiriirka bini'aadamka la leeyahay ama Soomaali ha noqoto ama bini'aadamka kale ha noqoto hagaajinaysa oo bulshada gudaheeda isjeclaysiinaysa oo bulsho isjecel ka dhigaysa oo maaragtay u tilmaamaysa meel loo socdo oo la higsanayo u tilmaamaysa sidaa in madaxnimadu ay tahay shacabku ma fahansaneen waxa weeye hebel baad necabtahay iyo hebel baad jeceshahay bay ugu qaybsantahay arrin war hebelna ma necbi hebelna ma jecliye waxa aan rabaa madaxnimada macnaheeda inaan la leexin oo la khaldin oo la habaabin marka marka muxuu shacabku u yahay waa arrintii aan lahaa markii hore waxay u baahan tahay sida ooda dhacmeed in meel fog laga soo bilaabo dhaqankeenna reer miyinimadeenna dawlad ka warqab la'aanteenna waxaa oo dhan macnaha in la soo gaaro markaa sababta shacabku sidaan u yahay markii dadka shacabkaa la fahansiiyo oo ay taasu caddaato markaa kabacdi baa waxaa dhalan karta madaxnimada macnaheeda inay fahmaan inay markaas noloshooda qiimo u yeelato hadda qofkii intii la doonaa la dilayaa waa aamusayaa qofkii dadkiisii la laayay waa aamusayaa oran mayo war dadkaygii baa la laayay lama yaqaan sababta u aamusaya soo ma arkaysaan waxa baarlamaan ku sheegyada ah soo keenidii meesha la keena wax kastaba ha ahaatee ka biqi mayaan in shacabku yidhaahdo baarlamaan ma tihin oo sida aad laaluushka iyo waxa ku dhex jirtaan oo aan maaragtay ma aha waxaanu idiin soo dirsanay ka ay biqi mayaan shacabku aadi mayo ku mudaaharaadi mayo muxuu ahaa dadka markii la iska laayo shacabku mudaaharaadi mayo waa aamusan yihiin wixii ku dhacaba waxaa moodaa guri ku soo dumayo ay madaxa maaragtay gacanta saarayaan bay la tahay facaayilka dowladnimadaba waxay u qabaan ninka madaxweynaha noqda iyo wixii la shaqeeya dadka inay leeyihiin oo kale sida hanti baa dadkii isu bedelaya hantidoodii sidii si la mid ah baana madaxdii u dhaqmaysaa marka ma dhowa arrintaanu aamuska la aamusan yahay oo waxgaradka Soomaaliyeed ka aamusan yihiin 30 sano burburkii lagu jiray waxgaradkii Soomaaliyeed waa aamusnaayeen badankood dadka hadla oo inta hadlayay ama haddaba hadla waxay u badan yihiin dad aan indheed garad ahayn
bay u badan yihiin iyo dad dana leh oo dana isku haya laakiin si baraxla adigoo aan dan gaara lahayn oo slogankii uu walaale cabdirasaaq sheekh axmed keenay oo ahaa annagu lafaha iyagana wax u dooni mayno cid gaarana wax la dooni mayno hadday labadaa midi jiri lahayd oo aad adigu lafahaaga wax u doonaysa ama cid gaara aad wax la doonaysa waxaad noqon lahayd cid markaas interest hagayo baad noqon lahayd oo interest ilaashanaysa laakiin markaadan cid gaarana wax la doonayn lafahaagana aadan mansab iyo manfac midna la raadinayn ee dantii ummadda laga hadlayo waxaa wanaagsanaan lahayd dadka shacabka ah arrintaa inay si fiican oo dhaga furan u dhegaystaan in cid la nabcaanayo iyo in cid la jeclaanayo kuma lagu lahaa hooyada canshuurta bixisa ilmaheeda waxbarashadeeduna saaran yihiin ayad qorraxdana fadhida haddii hadal soo celisana guriga albaabka lagala baxayo hooyadaasi maxay saa u mudanaysaa taasay ahayd hooyadu inay dareento wiilka ay dhashada askariga ah oo laleeyahay albaabka gurigiina ka soo bixina waxay ahayd inuu yidhaahdo maxaa hooyaday oo qorrax fadhida oo ilmihii maaragtay yaanyo qorrax dayac la fadhida oo haddana gurigii qolka ay degan laleeyahay waa la canshuuraya oo haddana iriddi lagala baxayo oo aan biyo la siinayo oo waxbarasho la siinayo oo caafimaad la siinayo oo nolol oo dhan maqan tahay sax ma aha sidaasay ahayd askarigu inuu garan karo oo qof kasta oo Soomaaliya garan karo inuu ka xisaabtamo dawladdu waa wax loo dirsaday inay u adeegto dadweynaha siday hadda u dhaqmayaan madaxda Soomaalidu kulligood meel ay joogaan dawlad goboleedyada iyo midda dhexeba waxaa laga adeeganayaa dadweynihii oo baylaha ah oo sakaar waran ayaa dayiciisa laga faa'iideysanaya hantina laga tabcanaya marka sidaa kuma dhacdeen haddii ay dadweynuhu wacyi lahaan lahaayeen ama dadka waxgaradka oo dheergaradka muddo dheer ay dadka la soo hadli lahaayeen waxbaa dadku fahmi lahaa qofka madaxda ahina inuu boqo baa iman lahayd lana xisaabtami karo marka aad baan waxaan u soo dhawaynayaa doodaha kan in aynu sii wadno shacabka Soomaaliyeedna ay dhaga furan ku dhageystaan cid aanu mucaarad ku nahay iyo cid aanu maaragtay wax la jecel lahay oo aan ummadda Soomaaliyeed ee shacabka aan wax la jecel lahay badbaadadiisa mooyee arrin siyaasadeed oo cid ku soo dhawaysanayna ama cid ku fogeynayna nuguma jirto isumana quurno oo dadka iyaga hadda hawsha tan bilaabay oo samatalis la yiraahdaa nuguma jiro qof dhiigga shacabka oo da'ayay iyo sakaar warnaanta shacabka 30 sano qof xil u soo qabtay oo ka soo mid noqday mahoobiga la mahoobiyayo dhiiggii iyo hantidii shacabka qof ka soo mid noqday nuguma jiro cid naga hortaagnaydna ma jirta aan damiirka iyaga ahayn marka damiirka iyaga aanu ku diidanayn in shacabka sidaas loogaga faa'iideysto asagoo dhibaataysan oo dhaawacan damiirka aanu ku diidanayn baanu haddana ku diidanahay inaanu shakhsi ama u ololayno ama shakhsi nabcaysano waxaanu ka hadlaynaa waa dantii ummadda Soomaaliyeed jiritaankeedii iyo wadajirkeedii oo meesha ay maanta marayaan aynu ognahay in maaragtay la iska googoosto la goobaysto baddi iyo barigiiba maraya arrintaasi waxay u baahan tahay aragti ummadnimo wadaniga Soomaaliyeed oo aamusan oo qarsoomayna waxaa laga rabaa inay muuqdaan oo soo baxaan oo hadlaan oo meel ay joogaanba isku aragti noqdaan sababtoo ah arrinta qabyaaladda iyo qabiilka iyo corruptionka ah oo maaragtay ay ku shaqaystaan waxa dadka hortaagtaagan wadaniga Soomaaliyeed inuu kor uga baxo oo arrinta warka qabiilka oo la ogaa reerna inaan qabyaalada wax tarayn waa la soo ogaaday marka wadaniga ayaa wadaniga kale la walaal hooyada qorraxda fadhidan wadani ka naxa ayaa wax ugu yaal sidaa marka ayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dheergaradka Soomaaliyeed ku soo jeedinaynaa kuna guubaabinaynaa aad baa mahadsantiin salaamu alaykum